muslimka waxa la arkayaa bari iyo galbeedtoona ma rabaan reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhi oo hore ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladeyn karaan bariga soo socdaana kama roona oo China iyo groupkiisu kuwanaaba ahlu kitaab labada ah kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo laakiin ka mabda ahaan way ka fogyiin caalam islaami dadka xukumaana labadaaba inay ka sii fogyiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yar ee dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yartay that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirra laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qurana ma aha waa caalam islaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weynta ka badan inta benshanka galaysa ayaa ka badan inta soo galaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada galayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo galaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalam islaami waa dhalinyaro waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukunta dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta 5-6 kanaale dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaalaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuu man gacanta muslimka ku jiray ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Bosfor ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimka ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaasuu xoog ku joogaa si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii la galay waxa ka mid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo waxa ka xigo oo dhame si kale haddaynu tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dago khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dago ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala
عالم الإسلامي وحكم دي ودنا عن خام مادة خام ما لو سو دوفينين مادة خام كي ودنا دو طالع واحد كستبين هليان anything لو بهاي هاي دول كودينو ليه هاي أو تصنيع أما industry جو بهاي هاي هدي ودن كودلن يرويه هدي موقع كود عاوية هاي موقع الدنيا معمولة هدي إنرجي الدنيا قاعدة هذا كشرو هدي مادة خام كي هليان يجوا هايستان وحكرد منو كليه عندي اسكوها قاتشين لهيد الحنكة السياسية قائد كي لها صاحب الرسالة متكمدة قرى أقويها كرر قلبت كوحولي هي وحقورة نمكن بولي وين إنه حق إسقى إلى لنا ويا وحقورة أردماني وسلاح الدين عصبة صباح بولي إن الرسالة الستة حنكة سياسية نله مبادئنا الرميسان إن maamul na garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalam islaami intaas ka dhiban waxa iman doonta khilaafa ama maamul ala minhaj an-nubuwah tariiqi nabi maxamed haysta ayaa iman doona isna intii alla doona buu joogi doona dabeetana waa la rafcin doona buu nabigu yiri waxa ku xigi doona buu nabigu yiri boqorra adag mulkan aadan isna intii alla qadara buu joogi doona waa boqoradii muslimiinta waxna qaldayay waxna saxay kadib baa ilaahay rafcin doona waxa ku xigi doona buu nabigu yiri mulkan jabariya boqorad dictator demala waa in maanta joogtay iyo wixii la nooca kuwa dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam iyana mudday joogi doona buu nabigu yiri thumma yarfa'uha ilaahay baa rafcin doona kuwana hadana ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وحصار نقول دون تبو النبي يقول خلافة مبدأ النبي محمد كسعطة إذا وين أرد منطقة مركها مرضم به وحصار نقول نسا ثم سكت النبي قال كامركم مرينا يوعى مصيب حكى الضمبين دونا إلهي باوك وحكى الضمبين دونا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورمين انت يدو سيس عندهم كما ورمين waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo 19th century ama 19 something 20th centuries-ka bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii ingiriisku ilaa 50 milyan oo dhadhow buu ahaa 60 milyan waxaa cagaynaya masarna 5 milyan bay ahayd maanta masar waa 100 milyan ingiriiskuna wali waa 60kii alqarni dabadeed waa 60kii masarna waxay maraysaa intaa mowqaca istiraatiijiga ah almiyaah daafi'a biyaha diirana dunida oo dhami gacantoodu ku jira موارد خام كا هداي دلن يرتاي يا هداي انرجي تاي يا هداي دول بيرات تاي بغعنتو دو كجيرا تاريخ داسي لا يقان معروف كا ويليه كم هي كيف با اما كوانتيتي كواليتي بو ودد سو سوده وحلنا مسلم كو سو نقونيا وانا لا محاله انه دب سو نقضه لكن اللي صار نقضه وحكاه الرأي وردب فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بلا هيل حورك يضاد حورت وتجيا وحدتك أنفعي أنا وهريا إن الأرض لله يورثها إلهي سبحانه وتعالى دولك يسقى عليه أرنا حلسين يا دومه سعيد دونه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا قرآنك إلهي وحين وقور رمي يهودا لقوا ميستي ولقوا حكومي بين أنا يرهق دالين وسيدا الله قالي يا إلهي وحان دوني إنان يقدرك مكسيو فرعون ينتي سيبا انت إلهي هلاقي با محي
yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhino oo isku akhrino niyaddan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonayaa oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu wuu sii dheeraan intaynu baraarugsanee wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobmi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallalu haddaynu fadhiisanna buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacni camal lunsan aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhiyaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جيتك ايغا كوا ودداله ايد ومكي قبل الجهاد بيسودكت والذين جاهدوا فينا كوا جهدغودا iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay darti ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala طريق الصحابه ku hanuuninayna والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كو هانونا هانون بانو كردنا يا با إلهي إلهي سبحانه وتعالى عدو باكري يدد با إسلام نمدا كسور جيدا ومن نبي ميل عدلا يمي باكري أنبياء دور نبي إلهي وحكوت المام يا قرآنك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين با إلهي نبي كستا كو مجرمين وعلو آبانو ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya haday ciidamada cilaa ka soo guulaysanayso dambiyada ka soo guulaysan lahay noloshu isriixasay walawla daf'u allahi an-nas ba'dahum bi ba'd noloshu isriixasay ku socotay sida awgeed wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dahum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura ولتصغى إليه أفئدة الذين إلهي وحينات المامية أنبياء إني كسر جدًا كوا علوا شيطان ماذا إنسجية جن كبا إلهي جن ترى ضبا كسر جدًا نبياء كوا إنسيو يرى الشياطين وكلا كسر جدًا ومبادئ دخل دفع فيني وحين لنا مركه مبدأ الرقي سقادنا وقول يستاه ربنا وحولي وأقرقاريا مبدأ يدتكيسو سيحدا نوا سيحدا عدو حق بدندي سوا حبكم حدنا لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد بإلهية يا إذن بقى قلنين يا إذن يا كوكت سومنا قال هذا الدنيا ده ركرقة يسكر ركرقة يعني وحقا كواستا ومتاع قليل بإلهية لكن قوستنا ما شرته هو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنطوا وينشر رحمته إلى إسقى الرب كي نحرست سودة كي يدتكم بركو قوستا كدب